Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Soomaaliya ayaa Jabuuti Kafuray Shir looga hadlaya arrimaha diinta iyo Soomaaliya. Sida warkan ay noogu dhameystirayso wariyaheena Xaawo Waris. waxaa magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti Kafuray Shir ay ka qayb galayaan imaamyada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan waxaana ujeedka shirka uu yahay wacyigelinta afkaaraha loogu yeero xagjirnimada ee dalka ka jira. Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa daafuray shirka waxaana furitaanka shirka uu ka jeediyay kelmad ku saabsan shirka. waxaa magaalada Jabuuti nooga furmay dalka walaalahanahay shir aad muhiim ah ama tababarkaas oo looga hadlaayo fikirka la dagaalanka xagjirnimada. waxaa soo qabanqaabiyo oo shirkaasi taageerana ku bixinayo urur goboleedka IGAD oo uu hadda wakiil uu nooga yahay Commander Abebe iyo dowladda Japan oo fanka bixinayso. waa u mahadcelinaynaa ayaga. wasaaradda iyadana qayb ay ka tahay imaamyada shirka. tababarkan waxaa loo qabtay imaamyada iyo khudbada loo qabtay waxaana looga hadli doonaa hadduu Ilaahay raado la dagaalanka fikirka xagjirka ah. fikirka sida og tahay waxa hadda nimanka nabadiinta lagula dagaalamayo ma ahan xabad ama qori ma ahan waxa fikra lagula dagaalamaa. marka ka wasaarad ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ayada waxaas wakiilka ah. marka waxaan rajeyn doonaa hadduu Ilaahay raado intii shirkan uu socdo in ay ka faa'iideysan doonaan imaamyada iyo culimada. waxaan rajeynayaa hadduu Ilaahay raado dalka inay kugu soo celin doonaan cilmiga ee meeshan ka barteen ee ka faa'iideen si dhalinyarada fikirka qaldan haysto looga bedelo fikirka dalkana nabad ugu noqdo hadduu Ilaahay raado. shirka ayaa daba socda shirar la xiriira wacyigelinta dowladda Soomaaliya ee la yeelanayso culimada Soomaaliyeed si loo helo isla jaanqaad iyo isfahan ku saleysan dowladda iyo culimada dhexmara. Xaawo Waris, SBS Muqdisho.